waxa iyana meelaha la khaldo kamid ah hakadka kore ama hamsada hamsu ama hakadka kore hamsuhu wuxuu xisaabsan yahay shibane wala uu ka duwan yahay shibanayaasha kale hamsuhu aad ayuu muhiim u yahay macnaha erayana saameyn weyn ayuu ku leeyahay laakiin dad badan xaqiisa ma siiyaan hamsuhu afka carabiga markii loo eego wuxuu ka dhigan yahay hamsatul qad'i hamsatul wasli hamsatul qad'i baa jira hamsatul qad'i buu ka dhigan yahay marka meelaha buu dhacaa meelaha uu dhaco waxa ugu muhiimsan marka laba shaqal oo isku mid ah ay israacaan hadii aan hamsaha la gelin shaqal dheer bay isu bedelayaan marka eeg waxaanu niri ka soo qaad halkaas hamsaynu gelinay waxaynu niri roob madiin hadii aynu hamsada ka saarno maxaa soo baxaya roob madiin sama abaar baan baa jirta hadii aan hamsada ka saarno maxaa soo baxaya abaar baan jirta waayahay marka waxa israacaya laba shaqal laakiin wax kala jira oo aan hadhowdi qaadan doona insha Allah taala marka ka hadlayno wax la yiraahdo magaca lamaan labada shaqal waxay ku jiraan hal eray mise waxay ku jiraan laba eray oo la isu keenay hadii ay ku jiraan hal eray hamsay qaadanayaan laakiin hadii ay ku jiraan laba eray oo la isu keenay waxay noqonayaan magac lamaan waxana khasabaya in xariijin loo dhaxaysiyo magacyada waxa kamid ah midlan sharma arke meeshan laba shaqal baa israacay Soomaha sharma arke laakiin hamsa inaan gelino waxa diidaya hal qodob oo muhiim ah wax weeye waa laba eray oo la isu keenay waa magac lamaan magacyada lamaana gadaal baa ka qaadan doona insha Allah taala afar meelood bay khasab tahay in xariiq loo dhaxaysiyo wixii kale waan la isku qoraa waayo arag waa la mid waa laba magac waa laba eray oo la isu keenay markii laba magac la isu keeno waxay noqonaysaa in iyada xariiq loo dhaxaysiyo laakiin hadii laba shaqal ay israacaan hal erayna ay ku wada jiraan waxay qaadanayaan iyagu hamsay qaadanayaan kaas waa mid hadii ay labada shaqal kala nooc yihiin sida su'aal go'ay faa'iido iyo wixii lamida akhrisahan dhibaato kuma jirto laakiin gudidu waxay isla garatay af Soomaaligu in hamso loo qoro waana sida saxda ah waa hamsadii baa la qorayaa waxa la leeyahay faa'iido oo kale shaqaladu markaa waxay noo soo baxaya ama ha isku nooc ahaadeen ama ha kala nooc ahaadeen waa in hamso u dhaxaysa marka eraygu ka kooban yahay shibane iyo hal shaqal oo ka dambeeya waxa soo baxaya yana hamsa in la qoro waa shibane iyo hal shaqal oo kaliya ka dambeeya bayrayba ka kooban yahay go hadii hamsa jalla maxay noqonaysaa macnihiisu isbedelaya ri bu du iyo wixii lamida hadii laga tago macnihiiba isbedelaya marka laba eray oo la isku laday ay cuslaato inay si caadi ah isu qabsadaan sida jam'ay leeday go'doomin gobolayn gobo ilmada gobole Soomaha gobo hadii laga tago hamsada maxaa soo baxaya gobolayn hadii go'doomin laga tago maxaa soo baxaya godoomin hadii hamsadii laga tago marka ama eraygii macna kale uu yeelanaya wuxuu noqonayaa eray aan lagu dhawaaqi karin runta cilmi baaris iyo horumarinta